الله وبركاته الله عليك غالي سود بعد جرمك وجرمك وانا اسكرب لهذا ليك لهذا شاب لهذا اصحابته لهذا كم حتى معنا كوهايا waxaad ogaataa adiga jasiirooyin badan oo aan ka soo sheekeynay laakiin jasiiradaas jasiirooyinkaas aan ka soo sheekay jasiiro ka duwan ayaa roomaanta inaan ku sheego jasiiradan waxaa la jasiirada sirka waxa ka dhacay isa ee tahay qaabkeed aan wada fiirsano weli ma maqashay jasiirada sirta ama jasiirada ugu qarsoon adduunka quruxdeeda darteed jasiiradan lagu tilmaamay jannadii baasifiga waa dal madax bannaan oo aan wax ciidan militari ah lahayn astaanta qaranku waa shimbir qooley ah weligeed madax kama noqon nin aan xiriir wanaagsan la lahayn dumarka amaba aan dumarka jeclayn waa 16 state ama gobol oo mid kasta uu leeyahay golo baarlamaan oo mid kasta uu leeyahay jiif caaqil waxyaabaha mamnuuca ka ah jasiiradda waxaa ka mid ah inuu iska yimaado qof aan dabaal aqoon maadaama halkani ay ku fiican tahay shareeraha biyaha ka soo qubanaya qaalmarogodka qoositaanka badda iyo weliba tartanka lagu tartamo oo la isku baacsado laashashka iyo doonyaha qofkii aan ilaalin deegaanka sida dhirta iyo xayawaanka waa laga masaafurinayaa halkan waxaana aad looga soo dhoweeyaa dadka u dhaqdhaqaaqa ilaalinta iyo badqabka bay'ada bad iyo berriba waa dhul dabiici ah oo laga ilaaliyey wax kasta oo deegaanka xumaynaya sida bacaha iyo qashanka kale Palau waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah jasiiradaha ugu quruxda badan adduunka waa carrasan xeebaha iyo dhirta uu ashqaraar ku dilayo qiimaha doogga iyo biyaha miiran ah wax kale ma maqlaysid aan ka ahayn codadka kala duwan ee shimbiraha iyo biyo cad macaan oo nadiif ah oo meel buur girgirkeeda ah ka soo daadanaya waxa ay leedahay 2 traffic light oo kaliya oo gaadiidka kala haga tani waxay cadaynaysaa yaraanta dadka iyo dhaqdhaqaaqa gaadiidka waxa la wariyaa in mar jasiiradani ahaan jirtay mid aan cidina lahayn oo cidlo ah wax dad ahina ku noolayn markaa kadib dad ka soo hayaamay dhinaca koonfur bari Asia ayaa soo degay mar haatan laga joogo 3000 oo sannadood waa jasiirado ka samaysmay qarax foolkaano sida ay saynisyahanadu ay sheegeen dhaqamada cajiibka ah ee jasiiradan quruxda badan laga diiwaangeliyey ayaa waxaa ka mid ah in dumarku ay leeyihiin gole amaba shuuro wax maamusha tusaale ahaan haddii xitaa jeef caaqilka degmada ama tuulada uu nin yahay isla oday dhaqameedka waxaa soo doorta haweenka oo raggu doorasho ma leh waa dhaqan soo jireen ah oo ilaa iyo hadda socda dadka waxbara oo halkan ugu mutacallimsan waa dumarka dhaqaalaha waxaa gacanta ku haya dumarka laakiin raggu wax cabasho ah kama keenaan si wanaagsan ayaana loola dhaqmaa maadaama loo ogol yahay in ay madax ay noqdaan amaba madax noqon karaan inkasta oo uu dumarku soo magacaabayo ninkii doonaya in uu xil qabto waa in uu xiriir wanaagsan uu la leeyahay gabdhaha xitaa madaxweynaha dalka ayaa ku khasban dhaqankan madaxweynaha haatan jasiiradda Palau waa ninka lagu magacaabo Surangal Wepis waxba ha ka yaabin adiga oo dalxiisa haddii lagu soo hordhigo saxan uu saaran yahay wax madow oo la soo kalankalay fiidmeerta ama kibiliga hadba sida aad u taqaano aad ayaa looga cunaa jasiiradan oo waxa ay ugu jirtaa booska digaaga jasiiradu waxa ay ka mid ahayd dhulkii la isku farasaaray dagaalkii labaad ee adduunka gaar ahaanna ciidamadii Japan iyo Mareykanka oo markaasi col ahaa wali waxa waxaad ogaataa hadda dumarka xiriir fiican aad la lahayn oo aad tahay nin dumarka dilo nin dumarka dhibaateeyo aad tahay jasiiradaas in aad tagto xil aad ka qabato sugin jasiiradan aad u jeedo madaxweyne waa loo ogol yahay ninka laakiin waxa soo doorahay haweenka ayaa soo doorahay baawarka ugu sareeyo waxaa la haweenka waxaad ogaataa iyadoo intaas dhan ay dhacayso haddii adiga xiriir aad la lahayn dumarkaas waxaad ogaataa waxyaalo badan in ay ka halaabaan jasiiradan shuruudaha ay leedahay waxay tahay hadda war aad aqoonin jasiiradaas macna tagitaankeeda waxba kuma taro waxaad ogaataa hadda aad tahay nin macna xayawaanada dhibaateeya hadda tahay ma laga soo musaafuray waxyaalo badan ay tahay laakiin waxaan leeyahay jasiiradan meel qaarkood oo aad ku aragtay dawlad la cunaa hebel la cunaa jasiiradan buu waxa la cunaa kibil markaan ku dhahayn dadka qaar kibil ma yaqaan fiidmeerad iyo bilaay oo ka saaran waxaad ogaataa haddii aad tagto raashinka walba ay cunaan bahashaas ayaa ku jirta kibiliga hadhow haddaad jasiiradaas tagta ima dhihi kartid aan kibil ma cunin kibil waad cuntay laakiin ma ogid waxaad ogaataa booska haddayd maaragtay digaaga iyo hilibka ay ugu jiraan jasiiradan jasiirad inay caadi maahan waxaad ogaataa markuu nin oo noqdo madaxweyne ra-iisul wasaaraha wuxuu naqahaa haween ayay naqeen waa sharci shuruuc u taalo waxaad ogaataa inaba caadi maahan xili jasiiradan dad maysan lahaan jirin
كل بقى تصور مغشي قيبت خرم إن ضد جوهر جوراء يسود دجن النظام الشرعي كلا دنبان أسمى استهادن دولتنا أوكي نصيبه Palau ku yaalla oo laga heli karaa raadadka taangiyada dagaalka ee gaboobay ee halkaasi looga tegay kadib markii laga soo jeestay dagaalkii labaad ee adduunka. Jasiiradda Palau oo ku taalla dhinaca koonfur galbeed ee gobolka jasiiradaha miiran ah ee Micronesia ayaa ah dal madax bannaan oo xiriir aad u dhow ah la leh dowladda Mareykanka marka loo eego arrimaha dhaqan-dhaqaale, ganacsi iyo isdhexgalka bulsho intaba. Waa mid ka mid ah 600 oo jasiiradood oo ku yaalla gobolka Micronesia oo dhaca badda Pacifica. Inkasta oo ay Palau ay tahay dal madax bannaan oo calankeedu uu ka babanayo xarunta qaramada midoobay, haddana waxaa lagu xantaa dal uu Mareykanku gacanta uu ku hayo siyaasad ahaan gaar ahaanna marka loo eego iskaashiga dhinaca militariga, arrimaha ammaanka iyo weliba wax ka qabashada dhibaatada isbeddelka cimilada adduunka. waa mid ka mid ah dalalka uu Mareykanku uu ku xisaabtamo si uu gobolka uu uga difaacdo Shiinaha oo ay mar walba ay ishayaan. waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah dalalka ugu qanisan ee ka samaysan jasiiradaha ee ku yaalla badda degan amaba haddii si kale loo sheego badda Pacifica. inkasta oo shaqada ugu badan halkaasi ka socota lagu sheegay beeraha iyo kalluumaysiga, laakiin dakhliga ugu badan ee soo gala ayaa baryahan dambe noqday dalxiiska oo cirka maraya. sanad kasta waxaa jasiiraddan soo booqda dad ku dhow 100,000 oo qof oo ka yimid daafaha caalamka. waxyaabaha cajiibka ah ee halkan aad ku arki doonto waxaa ka mid ah lacagta laga isticmaalo dalka Palau. waa dollarka Mareykanka oo ma leh wax lacag ah oo iyaga u gaara. waa halka Soomaaliya ay iminka ay ku socoto tirakoobkii ugu dambeeyay ee jasiiradda laga qaaday sanadkii 2022 waxaa lagu ogaaday in ay ku nool yihiin ilaa 18,055 qof, kuwaasi oo ku nool dhul baaxadiisu ay dhan tahay 459 kilomitir oo isku wareeg ah. sababta jasiiraddan loogu bixiyey jasiiraddii sirta ama jasiiraddii ugu qarsoonayd adduunka ayaa ah inaanay dad badan aqoon u lahayn jasiiraddan iyo quruxda ku duugan oo marka aad tagto aad iskaa u muusoonayso oo marnaba ha ka tegin ay ku qabanayso. Palau waxa ay dal madax bannaan ay noqotay sanadkii 1994. كل واحد مقشي كل مامول كذا سر هرت ودولة مدح بنان ساس إتهاي علن كذا أديها هذا أردت على مدى يورو دون كنا مركز كان علن كذا وكجرا لكن معناها تذكر حكوا حنتان إن مريكان كهوستان أو مريكان كحاجة دقالها يو حاصلا العقد لاقي استعمال العقد جوني اللي ما العقد لاقي استعمال هو العقد الدولار كا ساس إتهاي مريكان كأيام معنا ودمض أو كحسابتهم أي كمتها. بعد وقتها ودن كان عاد وجده وودن إن بان عادهن سوق خروج بين أدياب يسد وودن إن بان عادهن ساس تهاي ودن ماذا مريكان كما عرفت هوستو أي كميتها مركان قد هاي أيضا وودن أو أدي مدح بنان أو حرنمة قالت سجاشني أفرتي قاضتي لكن معناه إنك سو مدح بنان تهاي مدح دولة عالم جون الله أي تهاي لكن مهمة دولته معناها مريكان دولتها كور أو كحكم كور معناها مركلو ده محيتها معناها ودن كاس أنا ويتابسين عمل معناها دوكا أنا بعيتها ودما قار وحاجرو أديك أسكير أو دخالة في عن هيسن لكن دخالة يوحي يردن معناها أو لصيو ساس إيتهان ومدن كإيجا أو معناها خرشجليو أو أحوال بسيو أو ودن كاس أي كدم بيان بعد وقتها ودن كاس وودن بان عادين وكوع عنها وأدد وفي عنها إن عطوا صوت العيس هذا أقول ودن كاس جزيرة سبحان الله جزيرة السركة وجزيرة إن بان عادين قروح بدن أدي قروح بدن أو كفي عن أدي يا حبيبتي إن أسرع ذا عطوا صوت العيس تام ومال أتكهل الدونتي أوكي ولا الله قال يهور نرجو حد الله نشر كره أنت نعم بقى حد الله ولا الله قال سوري بعد شرنا وجركن مسكراب لايك شير أصحاب هذا وشير كره أدي هذا مهسنتين